Assalaamu calaykum. Soo dhawaada walaalahay. Mawduucina maanta sidee ku garan kartaa waxa aad nolosha ka rabto? Dadka sidan oo kale aan garanayn waxay nolosha ka rabaan waxay ku noolaadaan nolol shalayta ah. Adduunyada maanta way fududahay inaad nolosha ku dhammaysato si indha la'aan ah, adigoo raadinaya himilo aadan u jeedin inaad raacdo. Qaar badan oo naga mid ah ayaa addooma u ah dhiirigelinta dadka wax dhiirigeliya, addooma u ah fikradaha kuwa nagu hareeraysan, addooma u ah xayeysiisyada aan la kulanno. Dhaqanka maanta runtii weyna daadiyey, rabitaankeenna dib ayaa loo qorsheeyey. Waxaan nolosheenna ku qaadanaa inaan diiradda saarno yoolalka aan caafimaadka qabin. Waxaan u gudbinnaa fikraddaas aan caafimaadka qabin ee ku saabsan nolosheenna, carruurteenna. Waxaan xoojinnaa fursadaha caajiska iyo quusta leh. Markaan isweydiinno waxa aan runtii doonayno, waxaa naga caawin kartaa inaan iska ilaalinno waxaas oo dhan. Waxay naga caawin kartaa inaan iska ilaalinno waddada qaldan. Waxay sidoo kale na siin kartaa awood aan mar labaad u hamino oo aan ku kalsoonaanno nafteenna iyo himilooyinkeenna. Haddaba maxaad doonaysaa? Haddii ay dadkaas qof ka mid ah weydiiso, xaggee ayaad u socotaa? Wuxuu kugu jawaabayaa, runtii ma garanayo, laakiin in yaroo inaga mid ah ayaa runtii u leh fiiro gaar ah. Waxaan ku soo koobayaa taladayda si kasta ha noqotee, baro barashada xagasha saxda ah ee qaansada, oo baro dhererka tallaabooyinka aad qolka ku geli karto. Si kasta ha noqotee, diiradda saar dabeecadaha wanaagsan ee shakhsiyadeed ee xoojiya kalsoonidaada, furfurnaantaada iyo adkaysigaaga. Cabidix, waxaa muhiim ah in la ogaado sifooyinka aan kuu soo saari doonin natiijooyinka aad rabto. Qof walba shakhsiyadiisa ayaa u gaar ah, mana jirto hal dariiqo oo lagu ogaado waxaad doonaysid. Markaad wax badan ka fahanto naftaada, waxaad ogaan kartaa waxaad rabto iyo halka aad u socoto.